ayay meelaad ka tahay kutahay hodanaad ku tahay qofay badlaad ka tahay kutahay hodanaad ku tahay qofay badlaad ka tahay dalkaaga 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 laga helaa dalkaaga 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 laga helaa hormuud meelaad tahay meelaad tahay ayay meelaad بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد داوديال ولا ليال كسو دوادا برنامجكيني برا ku dayo halyeygaga danta guud wax weyn ka soo qabtay rubuc qarnigii tagay ee ku dayashada mudan waxaanu imika muddaanu soo wadnay sanad ku dhawaada waxaanaanu maaragtay ujeedadiisu ay tahay in dadka wadanka wax qabtay intii la soo galay maaragtay ama hor ilaahay u qabtay ama iyagoo shaqadooda qabsanaya maaragtay baradheereysiiyey dadkii kale dhinacyada nolosha ay maaragtay khusayso oo dhan maanta halkan waxa iigu martiya haliyey سعيد أحمد حسن إبراهيم oo ah gudoomiyaha jaamacadda Golis University oo runtii dadku aad ay wada yaqaanaan jaamacadaha ugu caansan wadanka uguna daada weyn leh ay ka mid tahay Saciid haliyey ku soo dhawo barnaamijka aad baad u mahadsantahay Rashiid waxaan idin mahadnaqaynaa inaad nagu soo siyaarteen maanta xarunta jaamacadda Golis waayi bal si background-kaagi ama taariikh nololeedkaagi iyo gaaban wax nooga sheeg xageed ku dhalatay goormaad dhalatay xageed ku soo barbaartay waxbarashadaadii hore waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa barigeeda oo meeshii beeraha la oran jiray malcaamadana waxaan ka galay New Hargeysa iyo beeraha agtooda iskuulkii dugsiga hoose ana riis baan markii hore galay haddana qurac dheer baan u bedeshay Axmed Guray baan ka baxay intermediate-kii dabeetana waxaan tagay institute-ka Burco markuu Jarmalku dhisay marka waqti ma ahayd waqtigaasi waqtiyada malaal lagama sheekeeyay laakiin tiise institute-ku waxaan ahaa qoladii ugu horeysay ee gashay 65 baan u galay iskuulka farsamada Burco ee dawladda Jarmalku ay wadankeena maaragtay ugu deeqday waxyaalaha horumarka leh ee la taaban karayo ilaa imika dadkii ka soo baxay da'walba hal ahaadane ay soo taagan yihiin oo wadanka meelo badan ka shaqeynayaan kuwa diyaaradaha maaragtay makaaniga ah iyo kuwa nooc walba xagga farsamada maaragtay aad u bartay bay ahaayeen intii dhimatayna Allahu naxariisto inta nool la hadii bihda nagala joogto ilaahay ma hadii weeye sidoo kale iskuul aanu markaanu yareen aanu ku hamiyi jirnay inaanu maaragtay gallo oo maaragtay aanu wax ka barano ayuu ahaa gaar ahaan aniga kula hadlayaa markii dugsiga dhexe aan dhameeyay waxaan tagay Burco waxaan ku dadaalay hadii biidmaayo inaan noqdo ardayda iskuulka wax ka barata waayahay shaqooyinkaagii hore iyo maaragtay waaya aragnimadaadii hore weli tacliintaadii waad sii wadatay oo markii aad hadii biidma iskuulka farsamada aad baratay maxaad ka baratay markaa iskuulka horta waxaan ka bartay mechanical engineering oo waxa weeye qoladan mashiinada ku shaqeysa toornada iyo milling machine mid la oran jiray iyo hadii la yiraahdo shaving machine iyo machine wax qoro oo dhan oo birta sameeya ayaa anaga nala baray sida wax loo abuuro ee maaragtay ama bool ugu yaraado ilaa ma iyo gaariga aad arkaysaa wuxuu ka sameeysan yahay parts iswada galaya sida markaa waxa wax walba loo sameeyo fikrad wanaagsan baan ka haysanay markii aan ka baxay institute-kana magaalada Muqdisho ayaan tagay oo shaqo ka helay
oo ardaydii ka baxday oo dhan shaqa halkaa laga siiyey dhulka umay dhici jirin dhibaato yarina waqtigaa way na qabsatay oo anagu waxaanu ka baxnay 68kii qoladii u horeysay baan hasaan sheegay 69kii ayaa shaqooyinka nala siiyey marka lot baan nagu soo gaaray shaqooyinka markaa nala siiyey 44 baanu public works ko kaliya ku tagnay Kenya iyo Otobarka meel la oran jiray deetana waana la dacayday waxa la yiri nimankani Maxamed Ibrahim Cigaal Allah u naxariistay oo markaa prime minister ahaa waqtigiisii baan la siiyey markii inqilaabku dhacay Maxamed Siyaad Barre culkoodii qabsaday waxa la yiri nimankani waa Maxamed Ibrahim baa soo hayr gareeyay oo shaqada siiyey oo waa isku wada qolo oo waa isku wada waliba jilb baan la yiri ilaa reer baalana lagu wada sheegay waxaana nagu jiray qaar Ethiopia ka yimid qaar ka yimid Muqdisho qaar ka yimid meel walba ayaa nagu jiray nin cilmi nuur loo oran jiray oo cornel ahaa oo full cornel ahaa oo de la level ahaa waqtiga nimankii meesha qabsaday oo laakiin aan ku jirin gudidii muxuu ahaa wax qabsatay inqilaabkii gudidii baanu ku jirin loo oran jiray muxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre Ismaaciil Cali Bukuri culkoodii waxay ahaayeen dhowr iyo 20kii 25kii sare gudidii kacanka kuma jirin dabeetana xitaa kaasaana lagu dirayo meesha loo dhiibay waxa la wixii directorate general la oran jiray ayaanu ka mid ahay isaga madax u ahaa isagiiba waxa lagu yiri nimankan haleeriyo nimankan yar yar marka niman makaanigiin ahoo ka shaqeyn jiray Kenya iyo Otobarka oo ilaa de dhowr iyo 30 sano 40 ka shaqeynayo Talyaanigii ku soo gaaray nimankaas naxaasiday de uu nabaaray qisadaas qisa wanaagsan si wanaagsan buu noo baaray bal cid aanu nahay Hargeysa ku soo horeeyay shan baan ugu tagnay aan ku jiro guddi deetana wuxuu yiri magaaladii Hargeysa maxaan idhaahdaa biyo laga waayo biyihiiba oo dhib ku jira markaa oo maxaa la doonayaa in la sameeyo marka waa 70kii waxaanu ku niri de waa la soo saaraya imika la soo saaraya marka Maxamed Ibrahim iyo dawladdiisii baa cilaaniyay in Hargeysa biyo loo sameeyo waa tii Shiina la siiyay 74kiina de waa 74kiina waa la soo galiyaan malaynay dabeetana uu naga tagay oo haddana wuxuu yiri idinku maraydaan dhalan oo walwal iyo wardheer anigoo dhar cada 44kii ayaanu halkaa ka nimid oo walwal iyo wardheer intaanu ka nimid ayaanu Burco ku socday magaalada Burco ilaa walwal iyo wardheer meesha duruqsi la yiraahdo ayaa nin ku haystay buu foostooyin biya oo jiraha naka inaan nala fadhiyay ayuu abti ahaa ninkaasi biyaha ku iibinayo ina Sheekh Usmaan Nuura ayuu ahaa showkii uu gartay halku ka yimid mana garanayno inuu nabaarayo haddana wuxuu tagay xaggan iyo ilaa Booram iyo Gariyaad iyo dhulkaas u socday wuu ka yimid Sanaag buu tagay halkaas uu sool ka soo galay saaxdheer iyo meelaha markuu marayo kolba ceel buu ka sheekeynaya halka ceel baa ku yaal halka ceel baa ku yaal cidda meesha wada degan uu garanaya markuu halka marayo ayuu nin reer Laascaanood la qabsado yiro runa halkaas laga cabaa tuuladaas laga cabaa sidaa yahay wuu ka socday deelatana wuxuu tagay halka iyo Boosaasiyo dhulka ilaa Kismaayo soo maray maalin walba mar walba wuxuu ka sheekeynay ceelka ku yaal iyo biyaha halka laga cabo Muqdisho markuu marayay ayaa inaan reer Muqdisho uu la qabsado wuxuu dhaadu ma reer Muqdisho ahay xageed ka baxday meel heblaayo macallin walba iskuulkii buu sheegay yaa ku macallimiin ahaa buu macallin jaamac buu yiri wuxuu yiri hebel iyo hebel iyo hebel kuwiina uu gartay adigu ninkaas wuxuu na gartay inaan isku wada qolo ahayn aan meel walba ka nimid inuu na baarayo waxaan ku garanay uu na hubsanayo markuu sheekadii dhameeyay ayuu nagu soo noqday aniga iyo nin kale oo reer Hargeysa ah kaas wuxuu nagu yiri idinku Hargeysa ma barigaatiin mise galbeedka kaasaan ku nirmay reer Hargeysa baan hay waxaan leeyahay ma xagga Arabsiye baatiin mise xaggan badar wanaagiye buu markaasaan fahamnay show nin walba wuxuu baariyay qoladu yahay de uu difaacay markuu arkay wuxuu waan idan arkay inaydan wada reer baalan ahayn Ciise Muuse iska daayo ana wax idin la qabanaya qisa wanaagsan weeye baan malaynay sidoo u baa marka hadii biilmaayo markii aad iskuulka shaqada qabateen xagee uga gudubteen
waxa weeye markaa anigu markii ay askartu qabsatay ah ayaan u malaynaya ilaahay inuu i tusay inaan meeshan wax badan ka soo jeedin haye dabeetana 71kiiba waan ka dhoofay wadanka waayahay Saudi Arabian tagay waayahay nimankii dhalinyarada ahaa ee la joogayna waxaan ku yiri war meeshan meel ay askari qabsatay ah naf ma lehe ha isku iloobina haddii kale odayaashan naxaasidaya ee 37 sanadood mid baa wuxuu lagu yiri 6 talyaani baa iska kay bedelay haye ka shaqeynaya halkan kuwaas u baydu noqon haye de Saudi Arabian tagay Saudi Arabia markaan tagayna wixii aan institute-ka ku bartay ayaan ku shaqeeyay haye marka technical drawing-ka ayaan ka shaqeyn jiray oo naqshadaha sawirada rasaam handasi ama draftsman ayaan ku bilaabay waligayna shaqo kuma waayay dadka ugu lacagta badanna waan ahaan jiray Soomaalida markaa meesha ka shaqeysa de markaa wixii aan institute-ka burco ka bartay ilaahay baa igu anfacay alxamdulillah waayahay markan dambana goormaad tacliinta aad u soo gacan baxday oo aad يعني اشتريك اللي عنا دوري شيء واحد هيستا PhD هدي بما يحق التعليم تاع قرما ديسكلا فريسا وحوي السعودية العربية سدا نتشوقي إن ميلها كشقيني الشركة ده ونكسب بانو شقي ني يرو ده دل يرو وحنو كمان يانا كراني يبانها تبعتنا الشركة دي أنو شقيني ماركتي مرايكن كاهي أيا horta Mareykan baan tagay anigoo Saudi Arabia ka shaqeeya ayaan Mareykan tago ana istiray deetana waan soo noqday arrimo yar yar baa igu dhacayo waxay noqotay inaan soo yaran noqdo Saudigi baan ku soo noqday markaan sanad Mareykan joogay dabeetana shirkadii aan u shaqeynayay ayuun baa aragtay sidaan u shaqeynayay yara jeclaysteen niman Mareykan ay haray waxay dhahdeen warniyo jaamacadaadii si aad u soo dhamaysato ma ku bedelaa oo sidii wanaagsan baad u shaqeysaa halkaana maad ka shaqeyn maalintii habeenkiina wax maad baran baan idhi de alxamdulillah ilaahay baa waafajiyo marka Mareykan kuna sidan u adkayna wax ahayd wax fudud sida lagu galiyo fiisaha iyo wax waliba iyagaana ka fiishay shirkadii shaqadii aan ku shaqeynayo civil engineering designer ayaa la igu qaatay Los Angeles baan tagay 3 sanadood iyo dheeraad baan joogay shaqada markaa waxaan doonayaa inaan civil engineer noqdo meesha maadaama aan designer ku shaqeynayo waxa wada fadhiyay hall weyn oo intan leeg baanu fadhino designer senior designer principal designer engineer senior engineer principal engineer iyo chief engineer na haysta iyo project manager ko dusha naga haysta wixii baan wada arkay nin walba wuxuu samaynayo ninka designer ka ninka senior ka principal ka engineer ka isku wuxuun baanu qaban jiray wixii markaan arkay sidaan u qabanaynay ayaan anigu bedeshay waxaan ku yiri mustaqbalka intaan imika waad garanaysaa waad gan imika ku wax kala doono markaana ilaa 10 sanadood ku dhow ayaan naqshadaha ka shaqeynay dabeetana habeenkii jaamacadan tagi jiray markii hore engineering baan qaadan jiray markii dambe baan bedelay oo business baan u wareegay haddana iyadoo sidaasaba shirkad kale intay iga qaaday interview Shell Oil Company iyo shirkad kale oo wada shaqeynaya ayaa Houston la igay oo gobol ka mid ah dalka Mareykanka kuwii baan sanad ka shaqeeyay kuwaasaan lacag aad u wanaagsan ilaahay iga siiyay jaamacadana waan dhigan jiray had iyo gooraalo intaan Mareykanka joogay 5 jaamacadood baan ka galay magaaladan tagaba waxaan ka gali jiray jaamacad dabeetana de lacag wanaagsan markaan samaystay ayaan dhidhamayso haddaba digriigii baan si wanaagsan u dhameeyay anoo sidaa uga soo baxay oo markaa shahaadadii la isiin laakiin wax walba dhameeyay ayuun baan jaraa'idka akhriyay shaqo laga doonayo Saudi Arabia City Bank ayaan arkay oo bangiyadii waaweynaaye Mareykan ku yaalay tiibaan markaa dalbaday tiibaa markaa interview la iga qaaday magaalada markaa New Jersey baan joogay meel gobolka New Jersey magaalo yar oo Pennsylvania Glassboro lafteeda baan joogay oo Glassboro State College baa ilaahay baa isku keenay ma sha Allah show isku jaamacad bay nahay laakiin magaceedii way bedeshay oo soo ma ogid maalum de markaas deetmeeyadii bay ugu dambeysay New waxa weeye marka university baa loo bixiyay Glassboro State College
nin Maraykan oo civil engineer $100 milyan siiyay Haye. oo donation ah Ha. magaciisii baa qaateen والله gabagaba ورونك marka jaamacadii waa jaamacad weyn imika وايه Philadelphia interview lagaga qaaday ها kii hore waan ka baxay ها kul labaad baa New York la igu yeeray ها kii labaadna waan ka baxay اي deetana inta tigidhkii la iga soo bixiyay اه ayaa la keenay Riyadh اي Riyadh baan u shaqeeyay 2 sanadood اي 2 sanadood markaan halkaa ka shaqeeyay ayaan haddana bedeshay iyaga waliba banking institute-na waan ka galay اي waan ka bedesho waxaan tagay Jubayl اه Jubayl magaalada la yiraahdo ka shaqeyn jiray اي 3 sanadood markaan ka shaqeynayay Jubaylna waxa dhacay 88 bay soo gaadhay اي dagaalkii baa dhacay اي sokeeye ee dagaalkii civil war-kii Hargeysa اه Hargeysa la baabiiyay magaalooyinkii وايه anigana contract-kii baa iga dhamaaday وايه markay contract-kii iga dhamaaday اه ayaan maxaan idhaahdaa meel aan ku soo noqdaa ma jiro اي ilaa halkan haadgeed waayad baad noqonaysaa moogta اي waa markaan idhi haadgeed waayey maan fahamsanaan jirin show waa nin wadan uu fadhiista bala اي iyo meel u fadhiisto Waay. maanta un baan saani u fahmaan idhi mahamahda haadgeed waaye Haye. waayo haadku haddii uu fadhiisan waayo geed dee wuu duuli uun ودولي deetana wuu soo dhici اوار ha marka Canada ayaan u haajiray اي Canada markaan u haajirayna dee dowladdii baan u shaqeeyey waxoogay markaan shaqeynayay shaqadaadii horaad ku shaqaysaa tu kale maya اه dowladdan u shaqeeyo markaa lama ogola markaa tagto walaagaa degree haysto wax walba hayso dhib baa ku qabsanaysa dadku markay haajiraan اه deetana shaqo yar oo aan biilka uga soo saaro reerka macaa reerkaygii baan halkaa tagnay اه ayaan qabtay اي tii sidaan ugu joogay suuqa ay haydo waxaa nugu dhawaa jaamacadda lagu yidhaahdo Toronto اي ayaa nugu dhaweyd xafiiskayaga وايه maalin un bay igu dhacday inaan master dalbado اي waan tagay oo meeshii waqtigii yara xidhmay ayaan tagay oo waqti dambe ay ahayd deetana waxaan doonay inaan tacliinta barto education bankii aan ka shaqeyn jirayna waxaan ku nacay ribadii iyo waxa وايه oo nin wax soo arkay oo ribadiina nacay baan وايه deetana tiina waxaan idhi bedelo bal education ka qaado tacliinta وايه tacliintii baan meesha tago waxaan ku yidhi education baan doonayaa inaan barto waxa la igu yidhi kuwa iyo kuwaasaa furan اي anu markaa tacliinta dadka waaweyn baan doonayay اي waayo social worker oo kalaan ka ahaa muxuu ahaa Canada volunteer baan dadka ugu shaqeyn jiray اي iyo bulshadeena dabeetana tii ayaa la yidhi way xidhan tahay tacliinta sare ayaan haddaba bartay planning and administration of higher education waxaan doonayaa inaan markaa summer baan bilaabo waa master degree اه waxaan is idhi markaad dhamayso samarka اه adaltkaaga qaado tacliinta dadka waaweyn Haye. kii baan jeclaaday اي sida loo maamulo ee loo wado maaragtay ee loo qorsheeyo tacliinta sare weeye waa jaamacadaha iyo collegeska اي kaasoo ha takhasuskayga اي kii markaan dhameeyey اه ayaa haddana PhD bilaabay اي PhD-giina waan dhamaystay اي اسلا subject isla subject-gii اي ayaan waayo waan jeclaadayba اي markaan dhamaystay haddana waxaa ii soo baxday inaan shaqo tago اي dee anoo shaqaynaya ayaan haddana waxna baran jiray Haye. labadiiba saasaan ku dhameeyey shaqo iyo waxbarasho anaana iska wada bixiyey tacliinteyda macaa ka hoose ka u hooseeya ilaa PhD-ga اه cid scholarship isiisayna ma jirto وايه cid kaloo waxay tartayna ma jirto وايه waqtigaanu anagu kusoo beeganayna waxay ahayd waqtigaa dee cumar oo aadba kusoo beegantay waayo dadkan reer Somaliland waxba lama siin jirin waxba ma heli jirin in yaroo isdabasho dabarta un baa dee laga yaabaa inay ka soo baxdo waayahay halyey siciid waxaa dhabarka aad ku sidataa tunka taariikh ballaaran oo aad adigu maaragtay isa soo dhistay oo wejiyo badan leh haddana nin soo rafaaday oo haddii biid maayo dhinacyo badan leh wejigaagu kama muuqdo oo waxaa la moodaa nin ganacsiya oo maaragtay reer qaniya ka yimid oo runtii ganacsi ku soo ababay waayahay ilaahay ha kuu sii siyaadiyey wanaagga marka ay timaado jaamacaddan goolis bal iyada nooga waran goolis magacaasi xaguu ka yimid se maxaa loogu bixiyey se yaa bixiyey se waqti maad bilowday jaamacaddan maasha allah su-aal aad u wanaagsane mid yar oo in yar ka yara jawaaba xabad keliyo arrinkaas sida aad u sheegayso waxa weeye inagu dad muslimiin aynu nahay marka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi
alqina qina nafs marka qofku kolba inta yare ilaahay siiyo hadii uu ku qanco de waxba ma noqonayo arrimahana ilaahay ba iskale ilaahay u dudayso markaan PhD ga dhameeyay horta waxaan doonay inaan shaqo tago laba shaqaanan awood saaray labadii mid Malaysia ahayd wax yar baa iga harsanaa inaan professor ka noqdo jaamacad midna Mareykan bay ahayd tiina waan bilaabo rajo weyn baan ka qabay bal mar maalmaha kamid ah 97 kii baan PhD ga dhameeyay ama 97 kii markaan dhameeyay ayuun baan u soo baxay aan isri bal hada Dubai tag iyo dhulkaasoo shaqo ka soo eego khaliijkana leena khaliijka joog jiraan ahay kuwana ku diinaadaan dabeetana aniguna wadankana de gudiyadii SNMtaan ahaan jiray dibadda waliba kaasheer baan ahaan jiray Riyadh iyo Jubayl baan lacagta ayaan hay jiray anigu gudiyada SNMta marka waan niyad jabayo xagga dagaalkii aanu ka wadnayn lahayn wadanka hal xoreeyo markii la xoreeyay waa kan dagaalka sukeeyay dhacay deetana wadankii baan ka yaranay jabay ilaahay Dubai buu keenay Dubai oo markaas waqti xagaaya oo aad u kulul oo laga xagaa baxay ayaan ku soo beegmay wasaaradihii iyo meel walba tagaba waxa la yiraahdo way xidhanto September un baa la imanaya deetana waxay noqotay dadkii ka imanayay dhulka Hargeysa iyo Burca iyo Berbera iyo dad badan oo bay mushtariya imanayay oo doon yaranayay waqtiga inaan kuwii wareysto anu marka hore waaban cadeysnaa waxa lahaa nimankii intaas oo dhan wax u wadeen haday iyagu islaayeen meel la tagaba ma waa hal bacaad lagu lisay ha dadkii markaan wareystay bay jeclaysiiyeen wadankii iyo sidoo yahay iyo inuu wanaagsan yahay deetana yididiila ay gashay waxaan iska iloobay marka wixii aan shaqooyinkii kale dib baan ugu noqday Canada waxaan markaas soo diyaariyay bal hada waxaan meesha ka qaban karo shaqooyinkii halkii baaban kaga tago inkastoo aan application form iyo wax qortay oo de telefoonada la oran jiray waxba ku socda markii la ila soo hadlay waxaan niman ka maarmay iga daay deetana wadanka waxaan la tago ayaan ku fikray waayo waana tay igu kaliftay inaan iraahdo madad ajnabi u bad wax baray adigoo maanta PhD sita dadkaagi wax tar waxaan doonay markaa inaan halkan imaado labadii kun baan imid dhul baan dawladda weydiistay waa la isiiyo xagga beeshiinaha ayaa dhul wanaagsan la iga siiyay waxaan doonay secondary school markaa inaan sameeyo boardinga oo dadkana wax tara dadka dibadda ee yar yar ka maaragtay qurba jooga Soomaali baa ugu badan dhalinyarada wax la xidho oo jeelasha ku jira wadan walba inamiya hablaba waqtiga laga dhigay waa la xidhaa kuwaana waan u naxay kuwaasina waxa noqdaan halkana waxa la barto marka secondary school baan doon hal dhagax laba shimbirood ku dil secondary school ka markaan bilownay de wax badan baan u dhisnay laakiin meel weyn oo la isiiyo maca garoomadii wax walba laba heedo dadkii baa iga horyimay yiri waxaan ma secondary school ba ha secondary school ma noqon karo dadkii deganaa meesha miyaa ma magaalada ba odayaashii iyo wax garadkii iyo xitaa wasiirada rag ku jira waar intan la eeg Saciidow secondary ha ka dhigine de jaamacad weeye jaamacad ka dhig higso ayaa la yiri xitaa marba nin waalana soo maro nin aan leeyahay isrigu fududiyo halka han gool ku sita oo iska lugaynayo anigu imakaan isiraahdo malawa dadka lagu jiruha intuu soo maray ayuu yiri war meeshan waa maxaa markaas la yiri dugsi sare laga dhisaya dugsi sare ma aha waa jaamacad buu yiri markaas aan la yaabay waqtiga imika markaan xusuusto waxaan ilaa talo kiimiya lagu jiray waa dadkeenu yiraahdo waa lagu jiray jaamacada markaa ma jirin waxa jiray Hargeysa Camud iyo Burca oo markaa la yar sameeyay ha meeshina aad bay u dhisantay laakiin waa qabyo badan oo guryo badan oo feeraarsan baan sameeyay laakiin qaarna way dhanyiin qaarna ma dhamaan dadkii waxay ku qanciyeen inaan sameeyo higher education ka inaan wax ka sameeyo aniguna markii dambe maadaama uu technical ha background kaygu waxaan doonay inaan 2 sanadood oo engineering horta ku bilaabo iyo wixii professional wax u dhaxeeya ninka wastaadka ah ee meesha dhisaya iyo kuuliga iyo ninka engineerka wax u dhaxeeyaan isla soo saar deetana 2004 ayaanu horta jaamacadda inay jaamacad noqoto qaatay 2005 waanu furay
halkii kamaanu furin magaaladanu ka furay waayo halkii mana diyaarna maaha dadkiina waxa noo cadaatay haddaanu boarding ahayn inaanay maaragtay wada imanayn oo hadday fogtayna inaanay imanayn marka u soo dhaweeyaan usna deetana magaaladan ka furay waxaanu ku bilownay engineero iyo booliiska oo had iyo gooraale jaamacadda golis waxay u taagan tahay baahida wadanka waata halkaa inoogu qoran soo garamaysid ko halkaa inoogu qoran weeye guusha ardayga guusha jaamacadda guusha wadanka iyo aqoon caalamiya waa intaanu ku bilownay afartaasa strategic balaankii u horreysay aanu ku qaadan marka macallimiintiina markii dambe waanu qaadano wasaaradda iyadana intayna soo eegtay ayay aragtay inaynu macallimiinna tababari karayno deetana waxaanu ka qayb gallay adoo markaa university ahaa oo iyo annaga golis afartayadaasaa qaatay dabeetana golis jaamacadda golisna waxay ku timid waan eegnay horta markii hore magacyo badan baanu ka fekeray golis markaa dhowr qof baan la tashaday golis baa la qaaday markaan golis magaca qaadanay ayaan injineer maxamed xaashiye rag la mid ah ayaan u yimid waan la tashaday wuxuu yidhi injineer maxamed xaashi keligaa ha qaadanine bal talada badso golis waa magac wanaagsane deetana allahu naxariistee gaariye iyo maxamed rashiid kan imanka doctor maxamed rashiid wasiira dowlaha ahaa rag sidaas oo fara badan ayaan isugu nimi meel oo weliba abwaanku isagu noomu imana wuxuu yihi looba noqon maayo golis hadday tahay dadkii waxay isu raaceen inaanan talo badanba badsaneen golistaa lagu daysto golis wuxuu ka socdaa silsiladan buuraha ee Ethiopia ka soo bilaabanta ee galbeedka Somaliland soo marta ilaa halka ilaa Sanaag marta lixdii gobol ee waaweynaaye hore shan bay marta de markaa Somaliland way koobsatay oo magaca Somaliland wada leedahay waana buuraha caanka ah kaasaan ugu magac daray imikana shan gobol bay ka furantay jaamacaddu waayahay markaa aad waqtigaa furteen waxa isaguna aan wadanka jirin markaa criminology-ga oo de dhibaato markaa taagneed ahayd oo dadkii hore ee dambi baadhisiyada baadhi jiray inay dee iska dhinteen waxna dee ay jiifeen markaad bilowdeen yacnihii meeshii boogtii bugtay ayaa taabateen baa la odhan karayaa markaa bal mashruuca maaragtay criminology-ga wax nooga sheeg wuxuu ahaa cumarow rashiidow baarakallah fiike waa sidaa aad u sheegtay horta annagu jaamacaddu waxay u taagantahay inay baahida wadanka daboosho baahihii markaa muuqday afar baanu qaadanay afar rukun weeye oo qof waloo doonaya inuu wax barto ama wadan doonaya inuu hore soo kaco afartaasaanu yidhi baa muhiim u ah weliba Somaliland waxyaabo badan baa muhiim ah laakiin afartii baahida loo qabay afartaasi waxay ahayd marka u horeysa in la helo oo dadweynuhu helo guryo iyo wadooyin jaban guryo jaban oo ay geli karaan oo laga baxo sandaqadahan iyo de guryahan iyo aqal Soomaaliga iyo laga tago iyo wadooyin jaban marka wadooyinka jabanna waxa weeye hadii la helo wadooyin wanaagsan oo meel walba mara qof waliba uu degi karaa beel buu samaysan karaa biyuhu soo saari karaa alaabtiisii uu soo saaray magaalada iyaga isfurfuray talabaad waxa ahayd in la helo bulsho mutacalimiina kaana waxaanu qaadanay muxuu ahaa education-ka wanaga tababarka macallimiinta qaadanayna in bulsho caafimaad qaba la helo bulshadii caafimaad qabtayna dhakhtarada iyo fayadhowrka ayaanu u samaynay ta kale in la helo la iskaga filaado cuntada faculty of agriculture ayaanu kaana qaadanay afartaa marka la helo waxaa jira qaar cross cutting ah oo u dhaxeeyo aad loogu baahan yahay oo uu ka mid yahay computerka iyo baayac mushtariga iyo maamulku kiina waan samaynay marka intaa la helo laba wuxuu aad iyo aad u muhiim ah oo baahi loo qaba jira mid waxa weeye waa nabadgelyada in la sugo nabadgelyada wadanka midna waxa weeye cadaaladda taa nabadgelyada in la sugo oo waqtiga aan aad ugu baahnayn ayaan soo horeysiin booliiska sidaasaanu tababarka ugu furay inaynu helo dad booliiskii oo fahmaya wixii
waliba anagu cilmiga booliisku kaliya maanu barin cilmiyo caama oo general education iyo qaar faa'iido u leh waxyaabahan imika la arkay ayaanu barnay dambi baadhistuna ugu horeyso waxyaabo kale oo maalan imika qof baa meel baa bam lagu qarxinaya bankaasi waxa laga yaabaa inuu yahay chemical marka haddaanu chemicalka garanay ninkii dambiga baadhayay oonu chemistry waxa background u lahayn ama biology-gana waa lagu dagaalamaa imika waxaasaan xitaa baray biology chemistry iyo physics markiina la weydiiyey waxaanu nidhi waxaan dambi baadhis shuqul kuma laha laakiin ninka officerka ah ayay dhaqaysaa dhowr iyo 30 officer baanu barnay bilaash baanaanu ku baray labadii sanadood u horeysay oo waxyaabaha jaamacadda Golis ay siisay ee Somaliland ay ugu tabarucday contribution-kii ay ku celisay wadankii ka shaqeysanaysay ee aad hiigsanaysay wanaaga aad markiiba hadii u qadinteen anagoo waxba qaban ayaanu ku bilownay dadtiina way dhaqdayo imika nimanka la shaqeeya booliiska ee taliyayaasha iyo hogaanada ragga haya la shaqeeya ee kaba waa raggii Golis ka baxay iyo dumarba inama yahablaba way ka baxeen ee wax bartay nin baa la ii sheegay mar inta loo keenay qola Ingiriis ayaa la keenay oo la yiri maxaan idhaahdaa wax bara nin raggii Golis ka soo baxay buu imtixaan ka qaaday 150 su'aalood buu weydiiyay 150kii su'aalood uu weydiiyay 3 ayuu ku margaday deetana ninkii wuxuu yiri kuwani intaan aqaano ayay yaqaanaan uma baahna inaan wax baro iyagu askartiina waxay idin tababaraan buu marka dee anagu contribution ka mana sheegano ilaahay baan maaragtay buuxinay laakiin wadankayagii baan u qabano waa ku farxsanay waxyaala maan leeyahay mawduucan qoray waxaan arkay nin Ethiopia loo diray oo criminology-ga la soo baray oo waqtiga aad sheegaysa ka dambeeyay ninkii baa waxa maaragtay lagu qoray saldhiggii booliiska markaasuu markii subaxdiiba soo fadhiistay kiis kufsiya ayuu bilaabayay markuu sidaa u bilaabayba inankii la soo saaray ee maaragtay dadkii yimaadeen ayuu yiri ninkii hadii biin maayo taliyaha in yar jooji odayaashii labada dhinac ayaa socday jooji waayay buu yiri sidiiba de arrinkiisi hoose lagu dhameystay haddana mid kale oo xidhan baa de uu maxkamadiisii u diyaar garay kiibuu yiri haddana waanu dhameynay odayaal baanu maaragtay arrinkii gelinayna ninkiiba markuu isiraado farqaadaba frustrated uu noqday ninkiiba wuxuu qabta waayay uu ku caajisay markaasuu u tagay nimay ilmaadeer ahaayeen oo makhaayad leh markaasuu waxaan rabaa inaan ku shaqeeyo wixii aan ku soo bartay de ma anfacayso dadkan uma soo jeedaan de wuxuu anagu waiter ka dhigan maayee de habeenkii de waashmaan noqo sidii buu habeenkii waashmaan ku noqday markaasuu qaadkii uu ku soo jiidayay iyo soo jeedkii badnaa ayuu ku waashay marka hadii biina waa mala awaal oo anigu aan mala awaalay oo maaragtay yaani dadkeenii imika CID-da hadaa tagto waxaad arkaysaa hadii biin maayo odayaal hortuban saldhigyadii bal maslaxada ilaahay baa inagu xukumay sulxa inaynu sameeynee bal horta wixii in la baalo in fursad loo sameeyo loo daayo dadkii cilmi baarista yaqaanay in loo daayo ayaa anaga marka anagu ka doonayo aan lahaa war cilmigii inaan cidla ku dhigin oo 4 sanadood buu ninkani soo bartay sulxeeni iyo diinteeni iyo isku xirkiina de way taalaameeshi waayahay marka taa laga yimaado siciid haliyay waxaan garanayaa aabo Allah u naxariisto nin weyn oo maaragtay muxtarima ayuu ahaa Axmed Xasan oo runtii qurbo iyo dibadna soo arkay nin tala badan la weydiin jiray ama maaragtay Ingiriiska ama dawladii ka dambeeyay ay qadarin jireen buu ahaa nin tacliinta u faradhuuban oo maaragtay ahmiyad weyn siiyana wuu ahaa waxaan garanayaa imika halkan uu hotelkan Maaweel ku yaalo qadiimi ay ku jiraan some cable ka soo horjeedo says baa ku ooli jiray dheeraa seeskaasoo markaanu caruur ahayn aan xanaf baba lahayn oo aanu ku ordi jirnay korkiisa marka waxa la yiraahdaa intuu iibiyay oo Maaweel markaa ka iibiyay ninka odayga ahaa inuu ka sameeyay
iskuulkii shacab geeraliska la odhan jiray uu ka damqaday in hablihii iskuul ay tagaan aysan jirin uu markaa u huray wixii uu haystay bal taa iyadana nooga iftiimi horta taasi dee runta hadda doonayso sheekada aada uma hayee laakiin waxaan ogahay inuu sidaas oo kale wax u samayn jiray oo matalan elementary schoolka riis baa ku magacoonaa nin bari saaba buu ahaa isagana aada uga shaqeeyo dadkeenana lacagta badankiisa guray dowladda ingiriisku wax yar bay ku dartay haddana waxaa loo bixiyo ninkii bari saabka meesha ka ahaa wasaaradda tacliintana education boardka ayuu chairman u ahaan jiray allah u naxariistay maxamuud axmed calina dee waad garanaysaa saaxiib bay ahaay dee odayaashoo dhan la wada saaxiib u ahaa laakiin specifically aaba allah u naxariistay wuxuu ahaa ninkii had iyo goor alis ag taagi jiray marka iskuullada la qorayo iskuul kasta marka munashiibiyadana wuxuu ahaa chairmankii dee ugu horreeyay waqtigii ingiriiskii chairman noqda anagu jaar baan iskuul ka ahayn habluhu maaragtay markaa wax gaagaaban bay xidhan jireen hase ahaatee shaadir halkan iminkay ka xidhaan bahalkan maaragtay jalabiibka iyo wax la yidhaahdo shaadir bay xidhan jireen oo ay isku asduri jireen waa yahay Saciid barnaamijkeennan oo aynu maaragtay aynu ka dhigi doonno laba qaybood oo kooba inagoo aynaan joogin qaybtii hore ay dhammaatay bal aan haddii biidmayno usoo galno goolis markaa imise gobolba iminka ka furanta oo gaadheen